السلام عليكم. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale kuna soo dhawaada fadhi kale oo ka mid ah xalqadaha Buundo. Xalqadan waxay inoogu martiya wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan. Fadhigan waxaan kaga bogan doonaa umuuro khuseeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland. Wasiir horta waan kaaga mahadnaqaynaa in casuumadeena aqbashay. Waxaan ku faraxsanahay in aniga iyo dadka ina daawanaya baan si fiican uga bogan doono shaqada aad u hayso Somaliland. Waay aragnimadeeda, caqabadaheega, fursadaheega iyo himilooyinka aad xambaarsan tahay waajibaadkaygu yahay inaad wax ka mid ah ka dhabayso ama ka wada dhabayso. Wasiir, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo dadka aad istaqaanaan ama ehelka aad tihiin ama asxaabta aad tihiin ama nolosha qaybo ka mid a aad si soo barateen marka laga yimaado mujtamaca reer Somaliland waxa laga yaabaa dad badan oo ka midi inay muuqaaga ama magacaaga ugu horeysay markii aad noqotay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland. Anigoo dadka raba inaan fursad siiyo waxaan jeclaan lahaa soo koobid yar inaad noogu samayso backgroundkaagii hore, noloshaadii shaqo hore, meelahaad ku soo noolaatay, waxyaabahaad ka soo shaqaysay iyo sida ay u dhalatay ugu dambeyntii inaad noqoto wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland. aad baad mahadsan tahay. runtiina waan jeclahay in fursadaas dadka inta taqaana iyo inta taqaana wabay taqaana laakiin intaan yaqoonna inay jaanis u siiso Cabdiraxmaan qofka uu yahay. runtii aan markaas ka warramo anigoo dhalinyara waxaan tagay dalka Canada 1991 waxaan ku dhamaystay sanadihii u dambeeyay high schoolkayga. waxaan ku dhamaystay iskuulka yaala dalka Canada high schoolkaygii. waxaan uga gudbay jaamacadda. halkaas waan galay jaamacadda Carleton University ee ku taala Ottawa, Ontario. waxaan ka bartay 2 degree oo ah electrical engineering and software engineering. waxaan ka helay shaqo company ku yaala dalka Mareykanka markii aan jaamacadda dhameeyay. halkaas waan ugu soo wareegay companygaas oo markii hore ka bilaabmay gobolka California denna u soo wareegay gobolka Minnesota. waxaan ku shaqayn jiray software engineering. waxaan specifically si gaara aan ahaa flight simulations for commercial airlines. inaad ogtahay mooyaane dhammaan diyaaradaha waxay leeyihiin flight simulations. qofku inta aanu diyaarad baran waa inuu horta ku soo barto flight simulation. waxaan ka mid ahaa designerska sameeya software engineering ee design gareeya flight simulationskaas ay ku shaqeeyaan commercial airlineska iyo military airlineska labadaba. muddo dheer baan company ka soo shaqeynay oo aan ahaa senior flight simulation engineer. intii ka dambeysay waxaan u gudbay inaan u shaqeysto si iskaya. waxyaabo kala duwan baan soo qabtay. independent contractor baan soo ahaa ilaa markii ugu dambeysay aan furtay business anigu aan leeyahay oo runtii noqday business successful ah. aad baan u danayn jiray siyaasadda weligeyba, gaar ahaan siyaasadda Somaliland oo runtii aan ahaa nin qof aad ay uga go'an tahay Somaliland inay noqoto dal jira oo la aqoonsan yahay. sida kaliya siyaasadda u arkay markaa maadaama Somaliland dimuqraadiyadu soo gudubtay oo xisbiya noqotay, waxaan markaa go'aansaday inaan xisbi hadda soo jiray aan ku biirin laakiin xisbi hadda la aasaasay inaan ka mid noqdo. marka waqtigu xilligaa goormu ahaa marka xisbiga 14 sano ka hor markii la furayay xisbiga ururka ahaa wadani. waxaan ka mid ahaa dadkii aasaaskii xisbiga ururka wadani ka qayb galay ilaa uga soo gudbiyey xisbi. waxaan ka qayb galay doorashadii 2017 oo aan aad u joogay wadanka ilaa muddada intii ka dambeysay. waxa weeyaan waxaan had iyo jeer u qaybsanaa Mareykanka iyo dalka gudihiisa. xisbigan waxaan uga shaqayn jiray gudaha iyo dibaddaba.
waxaan aasaasay xisbiga wadani ee Mareykanka dadkii aasaasay baan ka mid ahaa waxaan gudoomiye ka ahaa gobolka Minnesota waxaan xogeyn guud ka ahaa guud ahaan North America sida ay tahay gudaha waddankan oo ka warhayay waxay u badnayd sanadka 5 jeer baan iman jiray dalka wuxuu qaybsanaa 2 bilood oo waddanka Soomaaliland joogo iyo bil aan joogo Mareykanka soo waxaan uga shaqeyn jiray xisbiga gudaha iyo dibadba ilaa aan doorashadii labaad aan sidii oo kale uga qayb galay ilaa intii doorashadu dhacaysay ilaa uu xisbigu ku guuleysanayay go'aankayguna wuxuu ahaa in xisbiga la wado ilaa inta uu ku guuleysanayo doorashada nasiib wanaagna doorashada waan ku guuleysanay anigu saas ujeedada dhan siyaasadda soo galnay waxay ka mid ahayd qadiyadda Soomaaliland aad igu weyneyd iyo inaan ka mid noqdo dadka hagaya siyaasadeeda iyo dadka ka shaqeynaya wanaageeda iyo horumarka Soomaaliland arrin xiiso la sheegtay wasiirka adigoo dalka ka guuray qurbaha deegaanku ah inaad haddana ku lug yeelato siyaasadda halkii aad ka timiday oo aad wax ka dhisato oo weliba muddo 14 sano aad ku tibaaxday inaad xisbi dhismihiisa soo bilowgeegii ilaa iyo talada Soomaaliland ku guuleystaa ilaa uu gaari aad qayb laxad la kayd arrintaasi waa arrin laga yaabo in dadka siyaasadda xiiseeya ay gaar ula dhacaan in qof uu xisbi ama meel wax ka bilaabay muddada inta la eg daba joogi karo maxaad isleedahay kugu dhiirigelinaya inaad xisbi marka asaas ahaa soo dhistid ilaa iyo guushii kama damaystay filayeen ay gaaraan maxaa inspiration ku ah waxa weeye siyaasadda dadka qaarba si soo galaan qof baa u soo gala xildoon kaliya inta badan dadkaasi kolba xisbiga isleeyihiin way guuleysanayaan bay raacaan oo de guushi raaca qofna wixii uu bilaabay ilaa halkuu ku dhamaanayo iyuu jooga marka aniga waxa iga goday I was very determined in xisbigaasi aan la bilaabo ilaa intuu guusha ka gaadhay marka ma ahayn inaan xil u doonayo haddaan xil doonayo xisbiyada talada haya baan u tegi lahaa oo dee dadkuba saasay ku helaan laakiin aniga taas ma ahayn ujeedadaydu ujeedada waxay ahayd inaan xisbigaas soo dhiso mid kalena way jirtaayo waxa weeyaan marka waddanku dimuqraadiyadiisa cusub tahay ee xisbiya la aasaaso xisbiga had iyo jeer way adag tahay inuu muddo dheer la sustain gareeyo ama la hayo maadaama aragti nagu cusub tahay waliba aragti nagu cusub tahay waxa laga yaabaa xisbiga hadduu doorasho galo u doorashada dhaco inuu iska baabo anugu waxaan ka dagaalamayay inuu xisbigaasi noqdo mid jira oo sii jira hadduu doorasho ku guuleystay iyo hadduuna ku guuleysanba inuu sii jiro marka markii doorashadan ku dhacnay awoodayadii iyo dadaalkaygii waan sii laban laabnay si xisbigaasi uu noqdo xisbi xoog leh oo doorasho kalena ka qayb gali kara marka waxaygu mabda bay ku xidhnaan aniga mana jirin baahi aan xil u qabo oo aan u soo doontay laakiin waxay ahayd inaan waxaan dhisay oon ka shaqeeyey aan ka qayb ahaado marka waxa macna kuu sameynaysay haddaan hadalkaaga nuxurkiisa urursado waxa macna kuu sameynaysay inaad qayb ka noqoto aragti weyn oo aad rabtay inaad guuleysato sax maanta aragtidii way guuleysatay sax xisbigii aad 14 sano ka hor aasaaskiisa wax ka aasaastay maanta talada Soomaaliland buu hayaa sax adiguna waxa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland correct marna horta qorshahaagu maaha mase ku fikirtay in wasiirka arrimaha dibadda aad mar noqoto mise meelo kale ayaa niyadaada ku jiray mise kumaba jirine waxay noqotay waxaad qulqulka maalmuhu keeneen runtii anagu markii aan xisbiga dhisaynay guuleystay waxaan dhisaynay madaxweynaha Abdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro marka ku guuleystay jagada dalka madaxweynuhu isagaa soo dhisanaya kabinetkiisii madaxweynuhu isaga ayaa yaqaana qof walba meesha uu isleeyahay meeshaasuu ku habboon yahay ama meeshaasuu wax kaala qaban karaa runtii sidaan kuu sheegay aniga xilku muu ahayn muhiimadda koowaad in xisbigu guuleystahay inaan ka mid noqdo oo aan meel wax uga qabtana wax aan aad u rabay bahayd laakiin muhiim may ahayn meesha aan wax ka qabanaya laakiin sida ay kabinetka madaxweynuhu soo dhisay isaga ayaa doortay qof walba wasaaradda u dhiibayo iyo meesha ku habboon yahay
annaguna maadaama madaxweynaha la shaqaynayno oo aan taladiisa ku shaqaynayno meesha uu noo idmaday waan uga mahadnaqaynaa waanan ku dadaalaynaa inaan la garab galno. ma jiraan horta cid siyaasadda aad tusaale ama halbee kuugu hayd ood xiiseyn jirtay inaad kaga dayato qaabka siyaasadda ugu jiraan iyo mabaadi'dooda iyo afkaarta ay sidaan? kulley anu waxaan aad u jeclaa siyaasiyiinta mabda'a ku beysgaraysan yaan ku beysgaraysnayn qadiyad xil laakiin waxaan aad u armaargareeyaa dadka aan u arko inay qadiyad leeyihiin oo qadiyaddaa weligoodba ku taagnaayeen oo waxay aaminsan yihiin ay ku taagnaayeen. waxaanan oo maan jeclayn siyaasiyiinta maalinba meel jooga Philip Folopka maalba dhinac u hadlaya maalin xisbiga ku jira maalin xisbigan kale ku jira. marka waxaan aad ixtiraam u hayaa mar walba dadka mabda ah ku shaqeeya mabda'aasi ku shaqeeya culays kastay ku marayaan iyo dhib kastay ku marayaanba waxay aaminsan yihiin ku shaqeeya. ma jiraan dad aad odhan karto siyaasadda adduunka, siyaasadda Afrika, siyaasadda geeska Afrika ama siyaasadda Soomaalida iyo siyaasadda Somaliland qof ama laba aad odhan karto dadka noocaasa baan la dhacsanahay? wallaahi way badan yihiin siyaasiyiinta guud ahaana adduunyada dee rag badan baa jira, rag badan oo mabaadi'dooda dhib kasta u soo maray baa jira. Nelson Mandela ka mid a mabdi'iisa dhib iyo jeel badan iyo muddo dheer buu usoo marna mabdi'iisa muu bedelin dhib kastuu soo maro way jiraan. Mala Zanaawi baa jiray qadiyadiisu aaminsanaa intaasoo sannadood ilaa ku guulaysanay. qofku inuu mabda aaminsan yahay oo mabda'aasi dhib kasta iyo culays kasta inuu usoo marana u diyaar u yahay. wayna jiraan siyaasiyiin Somaliland rag badan oo waxa weeyaan say Somaliland iskugu hayn lahaayeen iyo qadiyadeeda ilaa mar walba u taagan oo marna ka tanaasulin baa jira. admiration badan baan u hayaa raggaasoo dhan. wasiir, arrintaasi waxay ii soo dhaweyneysaa su-aasheeda tan xigta. fadhigeennan iyo waraysigeennan wuxuu ku soo aadayaa xilli shalay uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre kaga dhawaaqay magaalo madaxda maamulka SSC Khaatumo in si rasmiya ay u aqoonsatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Somaliland waxay aaminsan tahay in SSC Khaatumo ay tahay dhul iyo dad iyada ka tirsan. SSC Khaatumana waxay aaminsan tahay in ay Somaliland kacdoon shacab iskaga kicisay dhulkeega iyo dadkeega dib u hanatay tahayna ama ay rabto inay noqoto state gooniya oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Somaliland jawaabteedu waa maxay? maxamedow horta runtii ma aha markii ugu horreysay ee dowladda xamar tiraahdo waan aqoonsanay. tiraba 2 jeer oo hore ay waan aqoonsanay yiraahdeen wax ka suuro galayna ma jirto. runtii saan wada ognahayna ma aha arrin ay ugu danaynayaan dadka reer Sool waa iyaga xaaladaha soo wajahay darteed inay waxoogaa nafisa ku raadsadaan. sidaan wada ogsoonahay iska daa Khaatumo inay aqoonsadaan dowlad goboleedyadii hore ayaan midna xiriir la lahayn. as a matter of fact Jubbaland iyaga dagaal baa ka dhacay, xabad baa ka dhaxaysa. Puntlandna sidii xasan u yimidaba xiriir ma laha. marka ma aha wax ay maanta reelaas aano dantooda iyaga waxoogaa nafis siyaasadeed waqtigan imika kaday inta yiraahdeenna kuwii horun bay la mid noqonaysa. reelaas aanoodna dan uma hayaan. laas aanood iyo Somaliland waa dad walaala. saan hore sheegana waxa weeyaan caqabada way soo baxeen, yes, laakiin waa wax la xallin karo. xukuumad ahaana diyaar baan u nahay inaan xallino wax kasta oo soo kala dhexmaray. iyaguna dad reer waqooyi bay ahaanayaan, dad reer Somaliland bay ahaanayaan, wixii doonaa ha jiraan. at the end of the day intan unba isle kuwa intii hareerahooda iyo xamar intii ay joogeen nabadgelyadu ka shaqayn wayna wax ay u soo kordhin karaan reelaas aanood haba yaraatee ma jirto. reelaas aanoodna way iska ogaan doonaan. wasiir, laakiin waxa jira markan waxay kaga duwan tahay mararka kale ee aad hadal qaaday kuwii hore oo kale la mid tahay tiri
in prime ministerkii dowladda federaalku uu ku sugan yahay SSC Khaatumo, golihiisii wasiirada qayb dhan oo ka mid ah inay SSC Khaatumo joogaan, xildhibaanadii baarlamaanka ee deegaanka iyo xildhibaano kale oo baarlamaanka ka mid ah inay joogaan. Marka waxaad moodaa inay siyaabo kala duwan uga miisaan culus tahay safarka prime ministerka iyo qadiyadda uu miiska soo dhigay ee SSC Khaatumo lagu aqoonsaday. waxba wallaahi runtii kama duwana. intana wuxuu u yidhi markuu meesha yimday de intaas waxa qura ee uu odhan karayay ba ahayd marka isagoo markaa isla de adduunyadii iyo dadkii u tus inaad wadan xukuntaan, laakiin de xaqiiqdeedu bay ahaanaysaa. waxay kaga duwan tahay hadduu xamar kaga dhawaaqo hadduu laascaanood kaga dhawaaqo macno badan ay samaynaysaa ma jirto. marka muxuu noqonayaa positionka Somaliland ee ku aadan dhacdooyinka xiisaha leh? dee xaqiiqdu waa xaqiiqdeedii. reer laascaanood Somaliland u bay ahaanayaan. wixii dhib ee jirana waa wax la xallin doono. iyaga laftooda ogaan doona inay tan unita rasmiga tahay. iyaguna dee waa dadkaan xamarba soo dhaafayn gudaheedii, markaa wax warwarka ay nagu hayaanba diyaarad bay soo raaceen, jidka ma soo mari karaan. marka maxay samaynayaan? maxay tahay laascaanoodna waxa u qaban karaan? maxay tahay waxaa ka horeysa Jubbaland iyo Puntland oo hareerahoodii oo ku dugsan baa aan wax xiriir lahayn, in fact dagaal ka socdaan. xamar gudaheedii baa jidadkii xamar ku wareegsanaa oo dhan baa al-shabaab haysata. marka waa iska nafla caarinimo uun runtii. markaa wax dhib oo nagu haysaa ma jirto. wax walbana intii isla iyagunbaa isle. laascaanood iyo Somaliland ma kala maarmaan, sina uma kala maarmaan. at the end of the dayna iyagunbaa is yeelanaya. reer laascaanoodna waa dad Somaliland, waa dadkii Somaliland soo dhisay, waa dadkii ka qayb qaatay xornimadii Somaliland 60kii, waa dadkii ka qayb qaatay dhismihii Somaliland dib u soo ceshashadeedii. waxa weeyaan wax yar oo khaladaad yimidayna waa wax la sixi karo. reer laascaanood waa dad walaalahaya, sina laguma kala tegayo. mar walba waan yeelana, annaguna mar walba diyaar baan nahay. xukuumadana diyaar bay u tahay mar walba inay soo dhaweyso, wixii khalad ee jirana la saxo, sidii la iskugu iman lahaana laga shaqeeyo. Okay, waxaan jeclahay markan inaan xaggan iyo constituency-gaaga iyo gobolka aad ka timid inaan su-aal la xidhiidha wax kaa weydiiyo. wasiir, waxaa jira gobolka aad matasho ama constituency-gaagu inuu tabasho muddo soo jirtay ka qabo qaabka loo qaybsaday ama sida loo kala helo awoodaha iyo khayraadka Somaliland. tabashadaasi siyaabo kala duwan baa looga hadlay, xilliyo kala duwan bay soo martay. badina ra'yi caamka gobolka aad matashaa awdal waxaa loo badan yahay in janjeed badani ku jiro qaabka Somaliland awoodaheega iyo khayraadkeega loo qaybsado. adigu ma qabtaa inay tabashadaasi sax tahay? maxaad aaminsan tahay in lagu sixi karo haddii aad qabto in tabasho jirto? runtii horta Somaliland systemku de perfect ma ahayn. qofka ku yidhaa perfect buu ahaa ma jirin. perfect ma ahayn. yes, tabashooyin way jireen. in fact tabashooyinkaasi sax bay ahaayeen. laakiin hal wax baan ogeyn. waxa weeyaan marka wax la sameeyo khaladaad badan u dhacaya, laakiin in mar walba wax la saxo ayay muhiimadu ahayd. runtii waad og tahay doorashadii berigii dhaweyd gobolku aad buu ka qayb qaatay. waxay gaadhay ilaa aqoon-yahanka gobolka awdal meel ba iskaga yimaadaan inay endorse gareeyaan xisbiga wadani, dabadeedna ay u gudbiyaan aanu sheegay inay la shaqaynayaan, ujeedadooduna tahay sidii wax loo hagaajin lahaa. Somaliland cid kasta waxbay taban kartaa. in wax la hagaajiyo oo dadku sinaadaanna waa loo baahan yahay. waxa weeyaan xisbiga dowladda wadani tallaabooyin waaweyn bay runtii qaaday, isbeddel weyn bay samaysay. wada maxamedow de waxa ka mid ah aniga ku hor fadhiya maanta waxaana wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland. inta Somaliland xisbiyada soo tatameen oo markii ugu horeysay ee qof gobolka awdal ka soo jeeda loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda. waxa ku tusaysaa isbeddelka weyn iyo tallaabada weyn ee dhinaca wanaaga u qaaday. of course haddaad weydiiso halba ma perfect bay tiraahdo, ma still perfect ma, laakiin waa maxay? waxa weeyaan cadaalad in la helo waa wax mar walba shaqo u baahan.
laakiin mar haddii dhinaca saxda ah wax loo dhaqaajiyey waxa weeyaan waxaan filayaa in taas will continue wixii kale jirana saa lagu sixi doono insha allah yes wax badan baa laga qabtay wixii dhimanna waa laga qaban doonaa waana waajib in laga qabta weliba aan wax ku leeyahay Soomaaliland dadku waa isku wada mid cid kastoo wax tabansana iyo cid kastoo wax ka maqan yihiin in la eegaa mar walba waa laga maarmaan marka waxaynu doonaynaa waa maxay inagu waxaynu doonaynaa cadaalad iyo sinaan cadaalad iyo sinaantana cid walba u baahantay Somaliland jiritaankeeda ayaa u baahan cadaalad iyo sinaan waxaan rajaynaynaa maalinba maalinta ka dambeysayna ku sii tallaabsanayno jidkii cadaaladda iyo sinaanta ilaahay baa cadaaladda 100% ka dhigi kara bili aadam kama dhigi karaan laakiin inaga maxaa laynaga rabaa mar walba inaan ku dadaalno sidaan ugu sii dhawaan lahayn ee aan u heli lahayn the perfect republic waanu dul qaadanaynaa wixii dhimanna sidii loo saxan walba ka shaqaynaynaa ciddii wax saluugsanna waxaan jecelahay mar walba inay ka shaqayso inay dib u fadhiisan laakiin ay ka shaqeeyaan iyaga laftoodu sidii loo gaari lahaa oo ay ka mid noqdaan talooyinka iyo arrinka ay ka mid noqdaan ma jecli qofku inuu dib u joogsado yidhaahdo waxbaa dhiman waxaan jecelahay qofku inuu ka mid noqdo sababaha ii geeyay inaan ka mid noqdo xisbi aasaaso ka mid noqdo ka shaqeeyo si aan wixii khaldan u toosiyo lafteeda waa inaad systemkii ka mid noqoto ood ka soo shaqayso laakiin bannaanka intaad ka istaagto ma odhan kartid waxaasaa dhiman moogta haddaad doonayso wax inaad saxdo waa inaad systemka saxayay ka mid noqoto wasiir waxa kaloon rabaa inaan wax kaa weydiiyo Somaliland iyo Ethiopia waxay ku heshiiyeen in marin badeed ay Ethiopia ka hesho xeebaha gobolka Awdal heshiiskaas dhacdooyin isxigxigay oo xiiso leh oo ku faafay gobolka ayaa ka dhashay ugu dambeyntiina waxaa jirtay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada xaajood iyo wada hadallo Turkigu dhexdhexaadinaya ku yeeshaan dalka Turkiga maxaad nooga sheegi kartaa halka uu ku dambeeyay heshiiskaas iyo jihada uu ilaa iyo hadda heshiiskaasi u socdo runtii anaga dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia wada hadalkooda wax noqoseeya ma aha qaybna kama nihin mana jecelin inaan anagu hadda arrinta isku mashquulno laakiin waxaan ku sheegi karaa Somaliland iyo Ethiopia waa laba dal oo heshiis weyn ka dhaxeeyo xiriir weyn ka dhaxeeyo isfahan weyn ka dhaxeeyo aniga Ethiopia xiriirkayga iyo wax wada qabsigayagana waxay ka bedelayso arrintaasi ma jirto waxa dhawaan soo ifbaxday wasiir in madaxweynaha Soomaaliya xiriir uu la sameeyay madaxweyne Donald Trump uu ugu ballan qaaday inuu la diyaar yahay dekedda magaalada Berbera arrintaas falcelintaada ku saabsan waxa la mid tahay desperationka ay sameynayso dawladda xamar sida imaatinka laascaanood waan maqlay meediada warqad buu u diray oo ugu ballan qaadayo in tigsiyo de wax lagu qoslo weeyaan dadkana aqligooda kuma ciyaari karo cidda u diraya cidda akhrisanaysaana way ogtahay Berbera cidda kaantaroosha maanta ciday maroma kaga jiro Mareykan iyo dal walba cidda Berbera kaantaroosha ma jirta haba yaraate adduunyaduna way ka dheregsan tahay dawladda xamar kaantaroolkoogu inta uu yahay inay ku eegan tahay xamar gudaheeda oo aan dhinacna u dhaafsanayn marka hadday warqad diraan iyo haddii walba wax alla waxay macno leedahay ama ay soo kordhinayso male waayo maanta adduunyada been looma sheegi karo way ogyihiin adduunyadu Somaliland way timaadaa way la macaamilaan cid walba timaada diplomacy bay yimaada representation bay ku leeyihiin Somaliland ku leeyihiin dalalka intooda badani cid maanta ay ka qarsoon tahay Berbera cidda kaantaroosha ma jirto marka macna ay sameynayso iyo cid ka dhageysatoona ma jirto marka waa sense of desperation bay ilata wasiir waxa jiray Somaliland iyo Soomaaliya waxay lahaayeen wada hadallo cabaar soo socday oo soo bilaabmay xilligii madaxweyne Siiraayo ilaa haddana soconayay muddadii u dhaxaysay inta wada hadalladaas halkay ku dambeeyeen natiijooyin la taaban karo oo ka soo baxay ma jiraan waa maxay se qorshaha administrationkiina hadda sax weeyaan maxaad sidaad sheegtay muddooyin hore oo wada hadallo ilaa dawladdii Siiraayo loo naxariistay wax ka soo baxay haba yaraatee ma jirto waxay midho dhaleenna haba yaraatee
may jirin waxyaabo yar oo lagu heshiiyeyna sidaan ognahay xaggooda ay ka socon waayeen oo xukuumadii naga horreeyey oo dhan wixii la sameeyeen waxyaabihii laysku ogaa oo ay dhinacooda inay fuliyaan ah xaggooda ka fulin waayeen wallahi anagu imika maba aragno wax wada hadal wax uu macno samaynayo waayo waxa weeyaan xukuumadda Soomaaliland waxa jooga madaxweyne mandate haysta oo ummadiisii dooratay oo 65% lagu doortay oo mandate-kii dadkiisa haysta ciidan aan la xaajoonayn la wada hadlayna waa nin xamar jooga oo aan mandate-kii dadkiisa haysan oo xiriir la lahayn dawlad goboleedadii oo wadamo ajnabiyo oo shandado lacag ku sitaa doorashooyinka shandado lacag laga yimaado oo waxoogaa tira oo qol ku jirta ay doorato oon ummaduna waxba ku lahayn marka dee dawlad legitimate oo anagu la hadalaba meesha ma taalo iskuba level maanta ma joogno marka runtii wax ay macna leedahay in wada hadalkoogu ma jirto intii horena waa soo aragnay maantana anagu dawlad legitimate leh oo dadkayga doorteen oo dimuqraadiyada oo doorasho la qabto oo tii deegaanka la qabto oo tii baarlamaanka la qabto oo tii madaxweynaha la qabto xildhibaanku waa nin matalaad ku soo baxay ka baarlamaanku waa nin matalaad ku soo baxay ka golaha deegaanka waa nin matalaad ku soo baxay madaxweynuhu waa nin matalaad ku soo baxay marka dawlad sidaa ku dhisan iyo dawlad aan ognahay oo aan representationkii dadkayga iyo mandate-kii dadkayga ba haysan ciidanay matalaan dee aan kala hadlaynaa ma jirto maba aaminsan in cid matalaan haba yaraatee marka mana aragno waxaanu hadda ugu sii soconno wada hadalkaasi haddii Soomaaliya ay ka dhalato dawladda hadda aad qeexday mandate sax ka haysata dadkeegu doorteen deegaan baarlamaan ilaa madaxtooyo ma la galaysaan wada hadal dhab ah oo natiijo dhala dee waa la wada hadli karaa laakiin wada hadalku muxuu ku saabsanaanayaa wada hadal wixii dan naga dhexeeya waa laga wada hadli karaa waayo waxyaabo badan oo iskaga kaayo xidhan baa jira wixii iskaga kaayo xidhan waa laga wada hadli karaa laakiin wada hadal midnimo ku saabsan oo ka wada hadli karna ma jirto Somaliland meel aan laga soo noqonin bay gaadhay marka wax taasi wax negotiation ay leedahay xornimada Somaliland iyo dawladnimada Somaliland wax negotiation oo laga geli karaa haba yaraatee ma jirto laakiin wixii dan naga dhexeeya oo ka wada hadli karna waa tahay wasiir Somaliland waxay xidhiidho la samaysatay wadano kala duwan qaarkood aan la aqoonsanayn sida Taiwan oo kale Taiwan awoodaha caalamku ama wadanada waaweyn ee caalamku siyaabo kala duwan baa ay isugu hayaan marmarka qaar waxay dhalisaa hirdan awoodeed oo dalalka waaweyn ee China iyo Mareykanka ka mid yihiin marka xidhiidhada noocaasa ay Somaliland la samaysanayso meelo uu ka jiro hirdan awoodeed oo dalalka waaweyn u dhaxeeya Somaliland miyaanay isdhigayn position lagu hirdami karo oo awoodaha caalamku ay ku hirdami karaan miyaanay taasina dhali karin in hirdanka awoodaha caalamku uu si taban u saameeyo Somaliland ma santa horta niyo su'aashaas meelo badan ka soo noqotaa horta mid la isla fahmo weeyaan dawladda Somaliland iyadu wax walba waxa ka egtaa danteeda waana la mid sida dawladaha kale waxa weeyaan danta dadkaaga iyo dalkaaga ayaa wax walba kaaga horeysa Somaliland yes xiriir bay la leedahay Somaliland Taiwan xiriir bay la leedahay waxay ka mid tahay wadamo badan oo caalamka oo xiriir la Taiwan ma garan karo waxa xiriirka Somaliland uu noqon karo mid khatara aan kuwa kale u noqon karin saad ogtahay representation office almost every country way ku leeyihiin one way or another masfaaradaha ugu yeedh ama mission ka Taiwan ugu yeedh ama diplomatic representative ugu yeedh ama commercial office ugu yeedh meel aanay Taiwan xiriir la lahayn ma jirto annaguna wadamadaas ma ka midnahay Somaliland waxa uu muhiima cidiyadu danteeda ay ka aragto marka haddii ay danteeda ka aragto Taiwan macnaheedu ma aha in dagaal kula jirto China
qadiyadda China iyo Taiwan u dhaxaysa waa tu iyaga u dhaxaysa mana faragelina anagu laakiin xiriirka aan leenahay aniga Taiwan waa mid aan dantayada ka aragno marka wixii iyaga China ka dhaxeeya iyaga ka dhaxeeyaan laakiin anagu xiriir baan la leenahay Taiwan waana mid aanu aragnayno anaga Soomaaliland dan noogu jirto marka anagu mar walba waxaan ka eegnaa maxaa idinka Soomaaliland ku jirta adduunyaduna waa saaso cid walba interestkeeda ayay ilaashata marka anagu interestka Soomaaliland ayuuman ilaalinay dee ma ilaalin karo interest dal kale laakiin safaaradda China ee dalka Soomaaliya ku taala marar badan waxay si adag oo luqad adag uga hadashay macaamilka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Taiwan iyo arrintaasi inaanay soo dhaweynaynin raalli ku ahayn arrintaasi miyaanay u muuqan in awood caalamiya oo aan loo babacdhigi karin aad isdhaafisaan waan ka xunnahay China inuu saa u fikiro waxaan u sheegaynaa dee anagu wadamada xiriirka la leh Taiwan ee adduunyadu maanu ka midnahay mana xasuusana anagu China markaan Taiwan la dhiil gareynayno China iyo arrimihiisa ma xasuusninba Taiwan uma focus gareynayna iyo danta naga dhaxaysa marka isaguna inuu sidaa u arko ayuu ma jecelnahay wasiir waxaad wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga caynaankeega qabatay doorashadii madaxtooyada Somaliland ka dhacday kadib wasaaradda arrimaha dibadda waa meesha Somaliland ay ka iibgeyso qadiyadeeda iyo umuuraheega ayna kula macaamisho caalamka ma isleedahay wasaaradda arrimaha dibaddu way haysataa agabkii dadkii adduunkii iyo arrinkii ay arrinta u igman tahay ku riixi lahayd walahi maxamed runtii dee arrimo iska soo jiitamayeen dadaalka Somaliland ee goonistaaggeeda iyo ixtiraaf raadinteeduna dee muddo dheer buu soo socday oo laga yaabo marba tallaabooyin baa la soo qaaday mar tallaabooyin mar intii loo baahnaa la wada qaadayna waa iska yaraanaysay marmar waxaan oran karaa laakiin anigu markaan runtii imiday assessment baan sameeyey assessmentkaan sameeyey waxa ugu weynaa kow bal horta inaan helo Somaliland foreign policy dhisan oo meel yaala oo qoran laba strategic ixtiraaf raadina oo isna qoran oo had iyo jeer marka xil loo dhiibo qof wuxuu ku shaqeeyaa inta badan qoraallo iyo process iyo procedures hore u dhiri uu raaco anigu kulley wax Somaliland foreign policy oo qoraala oo diyaarsan oo up to date oo meel yaalin uguma iman strategic qoran oo ixtiraaf raadina oo diyaarsanna uguma iman marka runtii assessment aan sameeyey tallaabooyinkii ugu horreysay aan qaaday waxay ahayd in qorsheeyo sidii loo heli lahaa loo diyaarin lahaa Somaliland foreign policy hawshaasi way noo suurowday khubro di Somaliland iyo caalamka ba hawsha ku jirta u diyaarinay insha Allah dhawaana uu soo bixi doona waxa kale oo qorshihiisa bilownay in la helo istiraatiijigi ixtiraaf raadinta oo isaguna hadda qorshihiisa socda waxa kale oo ii soo baxday markaa in loo baahan yahay in la helo institute diplomasiga lagu barto oo wasaaraddu leedahay institutionkii hadda isna waan bilownay oo University Hargeysa ee hadda wixii ka diyaarinay waxa kale oo hadda qorshihiisa isna diyaarinay in la helo sharcigii safaaradaha oo isagana hadda golihii wasiirada aan u gudbinay oo imikana baarlamaanka loo gudbin doono insha Allah waxaan rajeynayaa intaas oo dhan markay soo baxdo in la heli doono wado iyo procedure loo raaco wax walba insha Allah marka dadaalo badan baan ku jirnaa insha Allah wixii hore u yaalay halkiisa baan kasii qaadanaa wixii dhinaana inaan samayno hadda ayaan ku tala jirnaa anigana way iga go'an tahay saan kuu sheegay nin mabda iyo qadiyad ku shaqeeyanahay culays kasta oo ma wax kastoo iga hor yimaadana diyaar waa inuu u adkaysto wasiir waxaa jira shakhsiyaad saluugsan inaad hoggaan u tahay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku siiya sifooyin kala duwan oo ay u cuskanayaan in ay khalad tahay inaad wasiirka arrimaha dibadda ahaato maxaad ugu jawaabaysaa shakhsiyaadka
horta anigu dadka social media iyo waxa cidi tiraahday dad qof ku mashquulsan ma iyo hawlo ka badan oo waaweyn baa hor yaala anuu imika 4 bilood baan joogaa waqti qofku wax qabadkiisa ay ku determineeyaan ma lama gaarin runtiina waxay u muuqdaan shakhsiyaad aan u diyaar ahayn inay arkaan qof wax qabadkiisa waxaana runtii u badan yihiin xaqiiqda lagama tage way jira shakhsiyaad Soomaaliland iyagu shaar yar oo iyaga leeg u tashay oo aad moodo inay iyagu shaar yar oo iyaga leeg iyo sidii yar iyagu talagaleen oo ay u haystaan oo Soomaaliland inta ka balaaran tahay aan u haysan kuwaas horta cidina ma raali gelin karto oo waxa weeye shakhsiyaad hadday liqi kari waayo qofku nin ree awdalaba wasaaradii arrimaha dibadda jooga waxbaanu kama qaban karo nin maanta cidi ka xigsan karto Soomaaliland ma ihi oo cid baa kaaga la xajale badan mali nin kartidiisa iyo awoodiisa ku kalsoona waan ahay qof walbana taariikhda sheegi doonta wuxuu qabtay halkuu soo gaarsiiyo waxaan se jeclaan lahaa nimankaasi deemaan arag iyagoo markii hore iyo markii ka horeysaba ka hadlaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxa ka dhiman iyo waxa uu qabsoomi waayay iyo waxa meel u gaari weyday ma garanayo imika waxa kiciyay ma garan karo Soomaaliland inay soo dhisanto iyo in halkaas soo gaadho horena qayb baan uga ahayn imikana qayb baan ka nahay energy-ga ugu badan iyo kartida ugu badan iyo awoodda ugu badan annaga gelinayna si ixtiraaf u heli lahayd anigana runtii waxaan jecelahay inuu history-gayguuni sheego qofkaan noqay qof walba halkan ma joogi doono muddu joogi doonaa taariikhda sheegi doonta wixii u qabsoomay iyo wixii dib uga dhacay waxaan jecelahay in laygu charge gareeyo marka muddada halkaa jooga dabadeed wixii aan wasaaradda u qabtay iyo wixii aan Soomaaliland u qabtay taasi waa wax sax ah oo aan jecelahay in history ka mid noqdo wanaag iyo xumaanba waxaan ugu dambeyntii jeclaan lahaa inaan maqlo hamada iyo himilada aad rabto inaad ka dhabayso muddada aad xilka joogto maxamedow sida aan kuu sheegay sababaha siyaasadda ma soo galay xisbiga soo galay 14 sano xisbiga soo shaqeynay waxa weeyaan goolkaygu waxa weeyaan Soomaaliland oo dal adduunyada la mid noqoto ka mid noqota dalalka Afrika oo ka mid noqota dalalka adduunyada ummadda Soomaaliland oo hesha dhaqaale iyo investment oo aan la tartano wadamada adduunyada waxaan jecelahay muddada aan joogo inay suuro gasho insha Allah wayna suuro galaysaa waxaanan isleeyahay wax ugu weyn ee noloshaada ku farxad geliya maalintaas ay noqon doontaa aad iyo aad baad mahadsantahay wasiir waan kaaga mahad celinayaa inaad waqtigaaga qayb ka midana siisay sidoo kalena waxaan kaaga mahad celinayaa in stuudiyahayga Buundo aad nala joogto aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wasiir maxamed aad iyo aad baad runtii u mahadsantahay waanan ku mahadsantahay inaad igu soo casuuntay stuudiyahan quruxda badan leh ee Dubai ku yaala mar labaad iyo mar saddexaad aad baan kaaga mahadnaqayaa runtii aad baad mahadsantahay wasiir thank you halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa fadhigeenan oo aan kaga boganaynay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Daahir Aadan intaanu ku kulmayno xalqadan xalqado lamida aad baad mahadsantiin wasiir aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad u mahadsantahay maxamed